السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دوادا أبادر كاربي maanta waxaan rabaa inaan wax yar aan kala hadlo shirkadda Amazon oo ah shirkad aad u weyn ka mid ah caalamka markay noqoto e-commerce business markay ka mid noqoto shirkadda ugu horeysa ama shirkadaha ugu horeeya kamid ah hadaba Amazon sagaashameeyadii markay soo bilaabaneysay kuma ayna soo bilaaban meesha hadda maanta ay joogto waxay ku soo bilaabatay meel aad u yar oo buugaag la iibinayo maantana shirkadda Amazon markay noqoto dhanka alaab iibinta waxay ku jirtaa toobka kaalinta koobaad iyo bataqaana kaalinta labaad ay soo gashaa Amazon waxay leedahay ilaa 11 website ama marketplace oo wax lagu kala iibsado Amazon waa shirkad qaybteeda Mareykanka kaliya amazon.com ay 300 oo milyan oo qof ay ka adeegtaan ay wax ka gataan dadkan customer-ka ah ee Amazon jecel ee maalin walba wax ka iibsada sababta ay ku raaceen waxa weeye waa service-ka delivery-ga iyo guarantee-ga alaabtaas ay u siinayaan alaabtii oo dhaqso ay u keenayaan cilad haday ka imaatay ma taqaanaa bedelayaan qofka hadduu codsado lacagtiisa loo celiyana ay u celinayaan haddaba su'aashu waxay tahay maxaa marka anaga naga gala Amazon saa la socoto waa shirkad marketplace ah qof walbo alaab uu isaga keensaday oo shirkadda u dhiibtay oo bakhaarka u dhigeen uu ku iibin karo iyagana ma taqaanaa ay fee ka qaadanayaan Amazon ma aha shirkad intay baxdo warshado waaweyn ka samaysato Mareykan iyo China iyo India iyo Bangladesh ka samaysato alaab intay soo samayso alaabta keento iyada iibisa maaha sida dukaamada qaar lagu yaqaano kale Amazon waa shirkad ka ganacsata inay customer-ka aruuriso cidii wax ka iibin lahayd ay tiraahdo bakhaarkan aniga iska leh customer-kina waa hayaa alaabtaada keenso kadibna ma taqaanaa alaabtaada ka iibi alaabtaada aan kaaga iibino customer-ka Amazon marketplace-kaas qof walba ay u furan yahay waad baran kartaa waana ka ganacsan kartaa haddaba maadaama e-commerce uu yahay ganacsi xilliga hadda lagu jiro 21st century uu yahay $1 trillion oo marayo oo dadkii oo dhan ay ma taqaanaa ku baraarugeen online inay wax ka iibsadaan kuna iibiyaan ay ku baraarugeen adiga maxaa ku diiday waxa laga yaabaa in aad ma taqaanaa isleedahay oo luqadda Ingiriiska ugu adag Amazon ma baran karo Amazon ma waxay u baahan tahay lacag badan Amazon ma aragtay sidee ma aragtay u fahmi karaa yaa igu xiriirinayo talaabada koowaad ee qaadayso waxa weeye website-keena booqo www.abadiracademy.com sababta waxay tahay casharo complete ah dhameystiran oo af Soomaali ah oo ku saabsan ganacsiga Amazon sida uu shaqeeyo talaabo ayaa ku fahmaysaa adigoo aadan kharash gelinin lacag badan ku bilaabin waqti badan aad gelin ayaa marka hore systemka baranaysa soo shaqeeyo kadibna go'aan waxa qaadanaysaa inaad jeceshay inaad bilowdo in kale marka qaadato ugu yaraan hadda laba koorso oo qaybta Amazon FBA-da loo yaqaano oo micnaheedu ay tahayna qaybta maaragtay Amazon ay alaabta inta u keensato iyaga ku sii iibinayaan laba koorso oo dhameystiran ayaa ma taqaanaa ka sameynay koorsooyinkaas ay u jeedo waa af Soomaali waxaadna ku baran kartaa muddo yar markaad barato kadib ayaa ma taqaanaa bilaabi kartaa ganacsiga soo shaqeeyo aad ku sameyn kartaa Abadir Academy bishii waxaad iska bixinaysaa $15 lacag ka yar meel walba caalamka aad joogto waa iska diiwaan gelin kartaa haddii aad kaar haysato iyo haddii aad ma taqaanaa aad kaar haysan labadaba marka is diiwaan geliso casharada aad qaadato xilli bay noqoto aad ka dheregto waxa u baahnaa ka hesho ayaa iska joojin kartaa waxaan ku leeyahay ganacsiga e-commerce u barato ganacsiga Amazon gaar ahaan saa u fahanto oo ma taqaanaa aad waqti badan u geliso oo ma taqaanaa uga faa'iideysato ku soo biir Abadir Academy maanta www.abadiracademy.com waxa maanta aan fursad u helnay inaan soo booqano fulfillment center-ka Amazon mid kamida waana ku faraxsanahay ogolaansho fiican aan ka helnay aad baan u soo dhaweynaynaa waxaana ka midnahay dadka ma aragtay Amazon wax ku iibiya kuna dhiirigeliya dad kale ma taqaanaa Amazon alaabtooda keensadaan oo ay ku iibiyaan والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته